السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dadka ku xiran warbaahinta Nursum News iyo warbaahinta Nursum TV kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo maanta idinka soo tabin doono magaalada Stavanger ee dalka Norway xiliyadan oo kale marka ay soo dhawaato xilliga samarka ama xagaaga iskoolada ay fasax yihiin waxa jirto arrin caado ah qoysaska Soomaalida ama qoysaska ajaanibta ee ku nool wadanka Norway taas oo ah in caruurtooda ay fasaxa u bixiyaan dalka dibadiisa gaar ahaan dalalkii ay waalidku ka soo jeedeen ama qaraabada kale ku leeyihiin laakiin waxa dhacda mararka qaarkood in caruur badan oo dalka Norway ka tagay aysan ku soo noqon markii iskuuladii lagu soo noqdo fasax kadib ayna dhacdo in ilmihii halkaas uu joogo sanad ilaa dhowr sano oo kale oo dheeri ah waana wax loo yaqaan dhaqan celinta haddaba waxa jirto hadal hayn tira badan oo ka dhalata arrinta dhaqan celinta faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda oo warbaahintan dalka Norway iyo baraha bulshada dhowrkii sano ee ugu dambeeyay la hadalhay barnaamijkan maanta waxaan ku eegi doonaa qodobkaas bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Stavanger ay nagala qayb qaadan doonaan faa'iidada uu leeyahay ama dhibaatada ka iman karto iyo waliba sababaha keenayo in waalidka Soomaaliga ay ilmahooda ka bixiyaan dalka ayna u celiyaan dhaqan celin barnaamijka waxa ay nagala qayb qaadanayo oo martino ugu ah injineer Cumar Cali Cabdi oo ah oday injineer oo dadka ugu horeeyay magaalada Soomaaliyeed soo degay kamid ah muddo 35 sano ku dhow ama ka badan magaalada ku nool horeyna uu ahaan jiray gudoomiye hore ee jaaliyadda Somali community ee magaaladan ama gobolkan Stavanger ahna sidoo kale bara wax ka baro jaamacadda Stavanger ee dalka Norway iyo ahna consultant ama IT wax loo yaqaan ama maadadan ama la taliya ka tala bixiyo arrimahan IT-ga هذا العمر سلو هذا هو واسطة وفرح سنة هنا برامج قائم نقلتها يساعد مجالنا وصل ويسين وحكوا برامج كمرتين هو أحمد حسن روح أو نين دليرا وبرتي معدد له يقان باربان بدقوقي أو معدد بربارين تعرورته كان شقي هيئة حنان عرورته له يقان باربانك أحمد قف أكتفا وكتبت ضدك كان أحمد مجالنا أصلا نسوي ويننا أدوات واسطة كيف غاش برامجك iyo qofka ugu dambeeyo Cabdiraxmaan Cumar macallin Cumar oo gudoomiyaha ururka Militator magaalada Stavanger 2 sano ka hor laga aasaasay hawl weyn oo muuqatana ka qabtay Cabdiraxmaan soo dhawow saddexdiina aad u mahadsantiin haddaan ku bilaabo injineer Cumar injineer ama waalidka Soomaaliga in ilmaha kan ku dhashay oo ku noolaa oo luqadda wadankan la qabsaday la celiyo wadankiisana aqoon dhaqan cusub la geliyo oo meeshaas wax badan ku soo noolaado inta aan waxyaabaha ka dhashay aanan u iman bal ka aaba ahaan ka oday ahaan ka mutacallim ahaan maxaa keeni kara in waalid Soomaali ah ama sababaha ku qasba waalidka Soomaalida ah inay ilmahooda dalka u celiyaan bal concept-ga dhaqan celiska muddo badan magaalada Wadagneeda ama Norway Wadagneeda ama qurbaha ku noolada bal maxaa sabab waxyaabaha ka dhashay maxaa kamid aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweyntaad soo dhaweysay waxaan idinku soo dhaweynaa magaalada Stavanger daatiyan Nursum News marka hore baramihi laakiin waxa feelkaygu waxa weeyaan engineer data ku shaqeeya anahay halka waan ku saxayaa laakiin waxa ma baro macallimihi sabuurada ma tago runtii waa arrin muhiim ah arrinta aad na weydiinaysaa sababta ka dambaysa in waalidku ay ku khasbanaadaan inay caruurtooda celiyaan oo ay magaranaysaa dhaqan celin u celiyaan waxaan oran karaa laba arrimood ba base ah ta koobaad waxa weeyaan ilmuhu waxay waalidiintu jeceshahay inay afkooda iyo dhaqankooda ay ilmahoodu ku barbaaraan oo soo bartaan taasi waa sabab aan oran karo waalidiin badan baa iyagu taa ka duulaya caruurtooda celiya waxana laga yaabaa kuwaasi inay had iyo goor yihiin kuwa ilmuhu intuu yar yahay celiya arrintaas ilaaha ilmuhu ha ku soo barbaaro afkiisa iyo dhaqankiisa si mustaqbalka ma garanaysa aanay u dhicin ma garanaysa inuu ku liito afkiisa ama afkiisu ma garanaysa ku yaraado iyo dhaqankiisuba iyo dabcan diintiisuba talabaad waxa weeyaan iyagoo ilma celiya ilmuhu markuu xoogaa koro
ma garanaysaa uu gaadho teenage waxa la yidhaaho ama ma garanaysaa ilmo iminka qaangaadhba ku dhow ama qaangaadhba ah ay celiyaan sababtuna ay tahay waxa weeyaan iyadoo ay laga yaabo in ay ilmihii halkan markuu joogo dhibaatooyin kala kulmaan oo ilmihii uu noqdo ilmo ma garanaysaa qalqaaliya ama ma garanaysaa sidii waalidku markaa ay jeclaysanayeen ka baydhay oo ma garanaysaa ay u arkaan inuu ma garanaysaa noloshii ka dhacayo ayay is yidhaahaan warbal kula eerta dhaqankiinii iyo afkiinii iyo ma garanaysaa biyaddii ma garanaysaa aad garanayseen kula eerta labadaas gruuba sababood baa ugu waaweyn sababaha loo celiyay caruurta anigu sidaan u arkayo maasantay oo soo noqon doonaa labadaas wax ka dhasho Axmed cabsida laga qabay hadda baanabaanka kale tusaale ahaan waxay kamid tahay waxyaabaha waalid badan ku khasbeen in ilmahooda wadanka celiyaan markii kiis uu soo galo ama ay dareemaan cabsi noocaas oo kale ah bal labada sababood uu digto injineer Cumar sheegay wax ma ku dari kartaa oo ku saabsan sababaha waalidka Soomaalida ay celiyaan ilmahooda dalka dibadiisa u celiyaan fasax waxaan ka hadlaynaa ma fasax kooban oo bil iyo laba oo laakiin uu waqti dheer qaato sanad iyo wax ka badan bismillah horta aad ugu mahadsantahay inaad nagu soo booqato magaaladan barnaamijkan wanaagsan aad diyaarinaysid arrintan ilmaha iyo dhaqan celinta waa arrin aad muhiim u ah oo baryahan dambe aad looga hadlo horta intayna u noqon ko waxaan dhihi lahaa ilmaha sidoodaba hadda waxaan ku hadlaynaa waalid ilma haysta oo ilmihii ama celinaya ama raba inay celiyaan oo waxa ugu wanaagsan u qabtaan ilmaha sidiisa horta waa risk uu Ilaahay bixiyo waxa weeyaan ma garanaysaa dad badan baa isku dayay inay ilma helaan laakiin dhib ka haysta so ko horta dadkan waa dad ilmo Ilaahay siiyay waa matqanta waa wuxuu Ilaahay ku irsaaqay oo muhiim ah markaas waalid kasta oo kulay ilma helayna wuxuu ku fikirayaa sidee baan ilmahayga waxa ugu wanaagsan u sameeyaa marka ama halkan ha joogo wadankan oo halkan ha ku haysto ha isku dayo halkan ugu sameeyo ama wadanka u celiyo oo waxyaalo ka maqan oo raadinayo ha isku dayo inuu soo buuxiyo marka taas way horta ta koobaad dadku qof kasta uu ku fikirayo oo ilma leh inuu ilmihiisa sidee uu waxa ugu wanaagsan ugu sameeyaa taas horta qof kasta uu ku fikirayo waalid saan filayo tan ah marka in ay tan kala ognahay waxa weeye wadankan baynu nimid uu naga dhaqan gedisan yahay nidaamka loo wataa sida baanabaan oo kala jira waxay ka dhigan tahay ilmihii adaa dhalay adaa mas'uul ka ah laakiin dawladdiina laftigeeda de way gacmaha kula jirtaa oo ma garanaysaa waalid kasta inkastoo u madax banaanay ilmihiisa inuu dhaqankiisa baro diintiisa baro wax kasta u wanaagsan oo isleeyahay u wanaagsan uu bari karo oo u madax banaan yahay haddana meelaha qaarkood oo laga yaabo inuu soo farageliyo in kulli waalid dhahay ilmihiisa xumay ma jirto laakiin laga yaabo dadka qaarna ka yar fashilmato talada qaarkeed ama hadda kuritaanku saas darteed inuu loo sameystay nidaamyadan baanabaanka iyo waxyaalaha halmaan kusoo gudagalaan waalid badan markaa inay ilmihii sidaas ay dhaqankii ay ugu celiyaan wadankii ayagoo la cararaya marka maxay kala cararayaan waxay kala carin kulli waxay isleeyihiin uun badbaadiya in ilmaha laga qaato warar badan baa kulli iska jira oo isdhex socda social media ama dadku iska maqlaan kuwaas oo laga yaabo inaysan saldhig sax ah lahayn oo haddii si fiican loo gudagalo oo sharciga la iswaafajiyo ayba adag tahayba sidii waalid ilmo looga qaadaay wadankan gudihiisa sababtoo waxaa la marinayaa shuruucyo badan oo wadankan u yaala ama hay'adaha ka shaqeynaysa u yaala laakiin dad badan oo ogeyn baa jira oo ma garanaysaa maadaama dhagaha wax ka maqleen ama dad kale wax ka dhageysteen sidaas darteed dhahay okay raad baa ku soo galay Soomaa harka furo ka dhaqaaji ilmaha kale badbaad soo kale ujeedada ay wadaan waxa weeyaan ilmahooda inay badbaadiyaan kulli waa taas laakiin waxa weey kulli waynu soo noqon doonaa sida ma garanaysaa looga jaahil saari karayo ama loo wacyigelin karayo ama talooyin ku habboon lagu siin karayo كل ujeedada koobaad waxa weeyaan ilmaha inay badbaadiyaan ama wax soo baraan oo sida u celiyaan ama hala cararaan oo ayagu wax ka cararay hala cararaan xagga marka fikir wanaagsan baa ka dambeeyo yani marka fikir wanaagsan baa ka dambeeyo sana waalid kulli isdahay ilmahaaga ku rid meel oo xumay ma malayno jiro kulli fikir ma jiro laakiin fikirkaas baa cawaaqibta ka dhalata oo imaan doona hada waxaan soo dhow injineer Cumar iyo Axmed intay sheegaan ku saabsan sababaha waalidka loo celiyo ilmahooda wadankii ugu celiyaan ay halkaas sanad u soo joogaan maxaa ku darsaneed
ma jirtaa tusaale ahaan caqabada dhalinyarada u gaara oo waalidka aysan shaqo ku lahayn oo marka dambe sababi kara in ilmihii uu wadankii dib loogu celiyo ama baahi ay timaado in ilmihii uu halkan la qabsan waayo wadankii ku koray ku dhashay soo dhawow waa mahadsantahay oo kugu soo dhaweynayna magaalada Stavanger iyo barnaamijkan runtii aad haldoorka Soomaalida iyo magaalada ka qaadayso si afkaarteena aan ugu beerino Soomaalida kale ee wadanka ku nool ta hadda u soo laabto aragtideeda haddii aan ku daro runtii caruurta Soomaaliyeed ama jaanibta guud ahaanba dhowr sano ayaan ka soo shaqeynay ama la soo shaqeeyay waxaan soo ahay macallin dugsi Quraan waxaan ka warhayaa baahida gaarka ee waalidiinta ay qabaan waxa ugu muhiimsan waalidiinta Soomaaliyeed ee baahida ay qabaan waxa kamid ah in ilmahooda diinta ay bartaan oo si muhiimsan xitaa dhaqankooda luqadooda inay bartaan diinta number 1 inay quraanka ay bartaan iyagoo markaas aan ku qanacsanayn tilbidka ama fursadaha wadanka ka jira ilmahooda quraanka ay ku baran karaan marka waxaan arki jirnay ilmo loo raraayo Masar oo kale ilmo loo raraayo Kenya oo kale ama ilmo loo raraayo Ingiriiska leeyahay diin baa taalo waxay Soomaalida ay fahamsaneen waalidiinta waxa kamid ah aniga naftiga waalidiinta kamid ah oo hadda gabar yar 4 bil jirta hadii joogta dhaqankii wadankeena ilmaha markay dhashaan iskuul loo diro ama dugsi loo diro iyaga mas'uuliyad gaar ah ama doorka ugu weyn qaadan jiray laakiin ilmaha halkan ku koray nidaamka ay ku koran iyo iskuulkii iyo manhajka ay ku noolyihiin kamid ah in waalidkii asaga wax walba wada inuu geliyo waqti geliyo sida geed loo waraabiyo maalin walba quraankii sida iskuulkii kale looga caawiyo guriga markay yimaadaan marka arkaysaa in waalidiinta ay ka filanayaan macallinkii misaajidka jooga quraanka barayo kale inuu cunugooda shakhsiyadeed uu ka dhigayo halka guriga iyaga markay yimaadaanna aysan waxyaabo badan aysan ka caawinin taasaa ku sababaysa in cunug 15 sano markuu gaaro sidoo injineerka ka dhawaajiyay inay waalidiinta ay ka waayaan cunugii sida ay ka filanayeen akhlaaqi dabeecadda dhaqankii oo la yiraahdo bal wadankan ku soo fiirino marka in ilmaha diintooda la baro waa waajib dhaqankooda Soomaalida la baro waa waajib laakiin waalidiinta Soomaaliyeed dabinkii badankood ku dhaca waxa kamid ah marxalad fadal kala dhacdo cunugga qaangaaro oo aabihiisba la dhir yahay ay leeyahay wadankii baa keenayna waxaa muhiim ah markay yarihiin 3 sano 4 sano ay jiraan ka sii yarihiin wadanka la geeyo sanad dhaaf ama sanad walba la soo tuso dadka ay soo arkaan intaas ayaa ugu filan tarbiyo wanaagsan hadhowna waxay haysan karaan jinsiyadooda Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda wadankan ay joogaan ay xuquuq ay ku leeyihiin in nolojeeka ay ka yihiin oo ay ku noolaan karaan iyagoo caqiidadooda haysta okay isaga qadankaasi weydiiyo ilmo la celiya isagoo da'da sheegaysi jira 15 sano jira saaxiib buu leeyahay deegaan ku koray fikir qaab buu u fikiraya haddii noloshii iyo wixii uu ku koray laga qaado meel cusub la geeyo yani koritaankiisa maskaxeed iyo mustaqbalkiisa saameyn noocee ku yeelan kartaa saameyn weyn ku yeelanaysa anaga hadda hay'ad ahaan waxaan bixinaa fursad waxaan haynaa caruurta ee magaalada looga caawiyo casharada iskuulka oo leksiyal arbaca walba ah marka caruurta ajaan fara badan maado caruur Soomaaliyeed way timaadaa wadankan statistics-da laga sameeyay baaritaanada waxaad ogaanaysaa in caruurta ajnabiga halkan ku dhashada ay ka fursad yihiin waxbarashada marka la yiraahdo sida iskuulka ugu barnoosayaan maadaama ay haystaan waalidiin markii horeba aqoon aan lahayn ama luqad aan aqaan iyagoo halkan ku dhashay markii horeba fursadooda ay sii yaraayeen caqabado badan haystay haddii cunuga la sii wado Soomaaliya la geeyo ama wadamo kale la geeyo oo 7 sano lagu soo hay halkan la soo celiyo cunugii asagoo halkan ku dhashay ayaa waxa arkaysaa la soo celinaa asagoo nolojiga hilmaan oo cunuga halkan ku dhashay fursado badan haystay markaas hadhow way adkaanaysaa in dugsiga sare ku barnooso marka waalidiinta dabankii ku dhaca waxa kamid ah waxay soo barbar dhigaan Soomaalida Kanada ku nool Soomaalida Ingiriiska ku nool kuwa Mareykanka ku nool kuwaas Ingiriiska ku hadlaan cunugooda Soomaaliya hadii la geeyo ama Soomaaliland kale la geeyo jaamacado fiican oo luqadda Ingiriiska si fiican ugu hadla la geeyo cunugii iskuulka marna kama dib dhacayo oo Soomaaliya ku soo laabana jaamacadiisu hore u fadhiisana laakiin adiga Norway ka tagay luqadana meel kale lagu bari karan u san jirin wadan Muslim iyo wadan Afrika u san jirin cunuga hadduu halkan ku soo laabto dib ay u dhacay laakiin sanadihii badan dambeeyay waxa soo baxay iskuulaad online ah Norwegia oo ilmaha lagu baraa xisaabta luqadda Norwegiga maadada Samfundsfag oo looga dhigi karo online ilmaha iyagoo Soomaaliya joogaan meel walba joogaan dadkan fursadahaas ma oga laakiin yaa ka soo bixi kara taas waalid markiisa hore waxa soo sax ka ahay cunugiisa Soomaaliya soo jooga lagsax ka caawin karo marka boorsadan inta la qaadan ka hor bal halis ka baaro maxaa looga baahan yahay oo shuruud ah maxaa caqabad ah doonta ma la dagaysaa mise biyaha waa laga soo bixi karaa
waa arrimaha inta badan qorshe waa in lagu baxaa si fiican okay cumar cabdiraxmaan baa ka yara dhawaajiyey ilmahan markuu yaryahay la celiyo waxaa laga yaabaa saameynta ay ku yeelanayso inay ka yar tahay midda qofka isagoo weyn la celiyey waxbarasho ahaan qof halkan ku koray oo saaxiibo lahaa oo deegaan iyo degmo ku koray ilmihii bal halkaas ka waalid ahaan maadaama waddankan aad muddo dheer joogtay wax badan aad usoo joogtay saameynta ay ku yeelato koritaankiisa maskaxdiisa dadla dhaqankiisa iyo xitaa niyadiisa shakhsiyadeedoo horumarkiisa ilmihii weynaa iyo ka yaraaba hadda isku dari kartaa runtii waxa weeyaan waa si fiican buu cabdiraxmaan inoogu sheegay oo dee waa nin xogagaal u ah ama mujtamac ahaan ku dhex jira ama ma garanaysaa macallin ahaan soo tarbiyeeyay caruurta oo quraanka iyo garanaysaa lagsiyalabka iyo wax walba ka soo qayb qaatay waanu dareemayaa duruufaha jira anigu waxaan aaminsanahay caruurta horta waalidku marka u horeysa ilmuhu ama halkan ha ku noolaado ama xagga ha ku noolaado inay qorshe cad iyo barnaamij cad oo ilmahooda ay ku korinayaan hadday diiniyan tahay hadday luqad ahaan tahay hadday dhaqan ahaan tahay si uu maadaama halkan ku nool yahay tanna ugu noolaan karo taana aanu dhaqankiisii iyo ma garanaysaa diintiisii iyo wixii uu dee ma garanaysaa xaquuqdii xaqa u lahaa aanu u waayin waxa weeyaan waxa loo baahan yahay waalidku inuu samaysto qorshe cad oo waliba labada waalid ay qorshe cad oo ay samaystaan oo ma garanaysaa ilmaha haddii la geeyo uun ilmihii oo la yidhaaho okay dhaqankiisii ilmahan waxa weeyaan waxoogaa weynu sidii loo baahnaa maaha waa inaynu dhaqan celinaa aanu meeshii geynaa oo meeshiina aan wax qorshe ah loo samaynin sidaa uu cabdiraxmaan sheegay ilmuhu kuwa yaryar khaasatan qorshe waxaa loo samayn karaa aanu ku luminin luqadiisii uu ka tegay dalkan uu mustaqbalka laga yaabo inuu ku noolaado si aanu u luminin waxaa loo samayn karaa qorshayaal kuwa cabdiraxmaan sheegay oo kale ah oo ilmihii in ma garanaysaa dee qorshe loo sameeyo waxbarasho oo luqadiisii iyo isagoo xaggaan wax ka dhiganayo xaggana uu wax ka dhigan karo kuwa waaweyn way ka yara duwan yihiin kuwaasoo waxa weeyaan had iyo goor sababaha ugu waaweyn loo celiyaa san haraba u tilmaamay waxa weeyaan iyadoo ilmihii iyo waalidkii ay isla jaan qaadi kari laayihiin laga yaabo in ma garanaysaa soo galaan ma garanaysaa ilmihii inuu meel kaleba loo wareejiyo reerkii ma garanaysaa lagu soo fargeliyaa laga yaabaa sababa ka dambeeya kolley ilmaha weyn lagu celinayo marka kaa waxaa loo baahan yahay laftigiisa isaga laftiisa qorshe u baahan yahay ilmuhu hadduu age kaa gaadho waa damacdo inaad celiso waxa wanaagsan in dialogue iyo isafgarad lagu celiyo loo sii sheego ilmaha ee aan baab khiyaamo lagu celin fasax baynu tegaynaa dhowr bilooda marka labada bilood fasaxaynu qaadanaa ma garanaysaa summer holiday baynu baxaynaa dabeetana ha dhowto baasaboorka inta laga qaado la yidhaaho waxa weeyaan dabar nafsa kuna dubay halkan ka dabaalo ma garanaysaa la yidhaaho waa dhib iyada laftigeeda intaasoo qura marka lagu yidhaaho ayaa dhaawaca oo ilmaha dhaawac weyn u geysanaysa yani qof badweyn doon lagu dhex dhigay buu noqonayaa waxaa loo baahan yahay ilmuhu waa laba waa mid markaa ma garanaysaa aan loo cadayn karayn oo duruufo jira iyo mid loo cadayn karaayo dee waalidka xidhiidh la leh oo kontaag iyo wada hadal iyo qorshayaal ay wada samaystaan oo waalidka iyo ilmuhu isku xidhan yihiin kaa waalidka iyo ilmuhu isku xidhan yihiin sabab looga qariyaa ma jirto waa in qorshaha loo sheegaa waa in loo sheegaa balaanka socda waa in loo sheegaa waa in hadduu ogolaadana la geeyaa oo la sameeyaa hadduu diidana aan nooc min aljajuuba loo geyn tusaale ahaan haddiiba ilmaha uu nidaamka waxbarashada ku fiicnaan waayo ama uu dambiye iyo howlahaas galo yani in la celiya ma dhibtay sii kordhisay mise faa'iiday keentay yani halka Norway iskoolkii baa qaybka waalidkii yani waa wadan uu qofku systemku wax badan inuu waalidka caawidiyaar yahay laakiin meel kale hadii la geeyo dhibtii marka ilmaha lagala tacaalayo ama waalidku ay ka fakariyeen miyay kortay mise way ka baxda meesha horta arrintu kolba meel bay taagantay waxaa laga yaabaa ilmahan lala cararayo da'da age-ka yara roon ee gaadhay ma garanaysaa dee laga yaabo 15 16 17 baynu gaadhay lala cararayo sababta loola cararaya waxaa laga yaabaa ilmahani inuu galay dee ma garanaysaa arrimo waaweyn inuu yengis galay baa laga yaabaa in naftiisa loo baqayaa laga yaabaa oo waalidku ay naftiisa u baqayaan
marka in la celiyaa waqtiyada qaarkood waalidku daruuri bay u arkayaan ama ay noqonaysaaba oo ilmihii badbaadintiisa ayaa arrintu taagan tahay oo way ka soo gudubtay in ilmihii wax la baro iyo ilmihii magaranaysa la toos warbal ilmihii waxaan ku jiraa waxa weeye naftiisa halis u tahay sidee baynu ilmihii uga saaraa milyoogan aan ku dhex jiro ee khatarta ku haya ee khatartiisa leh waxay noqonaysaa taasoo kale adigu waalidku uu khasbay daruuri bay u arkayaan waalidku way ku khasbanaanayaan laakiin arrinta loo baahan yahay muhiimka ah waxa weeye marka ilmihii la geeyo ee ay meesha geeyaan inay qorshe cad u sameeyaan aanay inta badweyn aanay wada dhaqaaqin waa inuu program cad loo sameeyaa waa inuu magaranaysaa nidaam iyo program ama waxbarasho ha noqoto ama noloshii magaranaysaa oo si positive loo tusayo ha noqoto ama magaranaysaa waa in aan noqon ilmo laga qaaday wax dib lagala cararayo oo dib kale fooda loo geliyaano noqon ee qorshe iyo nidaam loo sameeyaa waliba waalidiintuna had iyo goor waxay u dhiibaan cid kale oo ehelka ah oo ay kaga yimaadaan taasina dhibaatadeeda ay leedahay inay waalidku la joogaan oo mar hadday arrintaasi daruuri oo arkay inay qaadaan ay halkaa geeyaan inay iyagu la joogaan oo gacantooda ku hayaan oo ciddii ay la kaashan kareen professional ee gudaha joogtana la kaashadaan ayaa loo baahan yahay axmed waxbarashada kale cumartu waxyaabo ka dhawaaji ka mid tahay in waalidku markay dareemaan ilmihiisu waxbarashada yani sidii loo baahnaa aysan uga soo bixin iskoolkii dee waalidku ilmihiis way jecel mustaqbal fiican bay la rabaan bal meel kale oo meeshan ka waxbarasho fiican oo ama ingiriiska dhe ama masar dhe ama meel kale dhe la geeyo marka halkan su-aasha hadda aan dareediyo haddii dee nidaamku wax badan buu ilmaha qofka caawin karaa in meeshan oo ilmihii dee wax badan oo taageeraha ka heli karo la qabsaday laga kaxeeyo meel kale oo dee uu keligii yahay mas-uuliyadduna ay waalidka fulaysa waalidka keliya ay tahay qofka mas-uulka la geeyo maxal ma noqon kartaa haddii si loo fiiriyo dhan kale ma noqon kartaa oo faa'iido ma u geli kartaa ilmihii waxbarashadiisii yani dib dhac ma ku imaan kartaa ama saameyn negative ma ku yeelan kartaa horta dee comer ampo waxay markasta waxay ku xiran tahay magaranaysaa waxay ku xiran tahay markasta xaaladda lagu jiro ta jirta waxaa weeye soomaalidu waxay dhahaan qeyrka ka hadhorta waa habaar waa laisku habaaro marka si kasta oo la sameeyo waxaa la rabaa ilmahani marnaba qeyrkii inuusan ka hadhin ama wadankii ha joogo ama halkan ha joogo markasta waa inuu la socdaa qeyrkiis maalintaad adigu kaliftid adoo isla wax u wanaaji inaad meel ku wadid ama meel kala geysid oo uu qeyrkii ka hadho ama uu isu arka isagu inuu ka dambeeyo nivoogii ama meeshii uu joogay inuu ka dambeeyo waad garanaysaa hadda say ku noqonayso qof kasta waxay ku keeni karaysaa heer maskixiyan ah xataa focuska dhan iyo motivationka dhan buu u weyn karaa waxbarasho oo dhanba marka muhiimadda ay leedahay waxaa weeye kow qofkan waalidku hadday tashteen oo ay magaranaysaa isla fadhiisteen oo ka baaraandegeen oo dhaheen okay waxaan go-aansanaynaa ilmaha inaan celino weliba in la celiyo ma ahee siduu adeer noo sheegaba ay raacayaan oo la joogayaan waa inay ku fikiraan okay nuur haddaynu kusoo noqonayno waa inuu markuu soo noqdo ilmahani waa inuu la jaan qaadi karaa waana la ogyahay nuur waa lasoo noqon sababta u joognaba waaba qof kasta uu isweydiin karaa hadda asaga ama ilmaha lahaada ama uusan lahaanne horta sababta meesha u jooga maxay tahay ama nabadgelyo daro nolol wanaag wareeba qof kasta wuxuu ku sheegay wuxuun buu ku sheegay soo ma meesha waa la joogaa sidii u eg tahayna meel loogama socdo dad boorsooyinka ilaa 30 sano 40 sano u xirxirnayd laakiin la hadda meel uusan weli jooga waxay ka dhigan tahay meesha waa loo soo noqonaya ama caafimaad ugu soo noqo ama waxbarasho ugu soo noqo ama fursado kaleba ugu soo noqo oo u baahan tahay marka inaadan adigu ilmahaaga caqabad ku noqon oo aad markasta ka fikirtid okay dhulkii baan u celini anigaana la joogi diintii baan soo bari luqadii baan soo bari way fiican tahay waa shay fiican laakiin markuu soo noqdana inuu la jaan qaadi karayo dadkii loodkiisa ahaa ilmo uu shalay ka fiicnaa oo baanahaga la dhiganaya baan iskuulla la dhiganayay iskuulka hoose ilmaha la dhiganayay ama meesha xanaanada la dhiganayay markuu soo noqdo uu arka asagii inuu ka sarreeyo waad iska garan kartaa su-aalu isweydiin karo laga inuu ku kaliftaa inuu suuqa iska galo marka waalidka yani ilmaha waalidka dusha ka saari kara eeda inay xiriirka waalidka ilmaha marka dhaawac soo gaari karaa tusaale ahaan soo gaari karaysaa waa ilmuhu rebellion buu noqon karayaa waalidkan ixtiraam u haynin oo uu arkayo inay mustaqbalkiisii dhaafiyaan
even though ay ka fikirayeen mustaqbalkiisna u wanaagsan tahay luqadii soo barto dhaqankii soo barto aragtida fog ah laakiin asaga markuu soo noqdo 5-6 sano kadib wax fahmi karayo laga yaabo asagoo yarba in la celiyo oo ma garanaysaa tiin intuu soo gaarin 10 oo intuu soo gaarin hadda uu yar baaluqay oo fikirayo oo su'aalo is weydiinayo markuu soo noqdo is weydiini sababta sax ku dhacday sababta sax ku noqotay is weydiini marka sidoo Cabdiraxmaan noo sheegay kale way jiraan dad isba bardhigaya dad wadamo kale ka yimid oo luqado kale ku hadla oo ma garanaysaa istusaya camal oo dadka ilmahooda way celiyeen saas soo sameeyeen muhiimadda kulli ay isugu soo geeshoonayso waxa weeye waalidku mar kasta inuu waxa ka baaraan dago qorshe fadhiisto qorshe samaysto ayagu labada waalid tashtaan bulshada la tashtaan dad faamilo badan waxa jira ilmahooda ama halkan joogaan ama si kale sameeyaan diintii iyo dhaqankii iyo waxbarashadii kala isku wada waxay sameeyaan inay wax ka faa'iidaan imaamada localka wareystaan inay talada kulli badiyaan si fiican bal intayna wax ku degdegin ay si fiican uga fiican yeeshaan Cabdiraxmaan waxyaabaha aad baa ka dhawaajisay intaan hadda ka wada dhawaajino waxay tahay tilbuudka ama waalidku marka ilmaha celinaya waxyaabaha cilmi xakameyn dhaqanka soo bartaan inay diinta soo bartaan halkan miyaan laga heli karin salahan nidaamka dawliga oo kale ama kamuunka ha noqoto ama dawladda ha noqoto ama degmooyinka hoose ha noqoto ama bideelada ha noqoto xaafadaha miyaan la heli karin ama xitaa Soomaalida dhexdeeda community-ga ha noqotee inay wax organize gareeyaan sida qowmiyadaha kale oo Sri Lankeyska ay sameeyaan in ilmihii asoo halkan joogo dhaqankiisa iyo diintiisa uu dalkii ku koray oo ku dhex baranay inta wadan kale oo fog loo geyn lahaa dhaqan iyo diin barasho horta waalidiinta Soomaaliyeed way dadaalaan sida ka waray hadii iyaga la hadda diyaarada aan saarno ilmahooda wanaag way la jecel yihiin laakiin sidii laga rabay diinta markii laga hadlayo kala in imaan quraanka ay bartaan hadafka iyo ay leeyihiin iyo juhdiga geli ismaal door sanad maxaa leeyahay macallinka shaqada soo ilmahan arki jiray macallimiinta laga filan in ilmaha quraanka baraan xitaa xuquuq fiican ma haystaan lacag fiican ku filan lama siiyo wadankaana waalidiintu waxay ku leeyihiin maxaa leeyahay ajir baad helaysaa ilaahay baa ka abaalmarinaya laakiin wadanka cibaado looma iman hadii ilaahay laga cabsado qof walba halkan wuxuu iimaan nolol fiican helo inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu wadankii laga yimid ee Soomaali guri ay ka gataan macallinka dugsiga quraanka dadkaas uu ka mid yahay in asaga la yiraahdo sheekho ilmaha hay quraanka bar jazakallah ilaahay ajirka siinayo wax uu san bisha aan ku filan la siiyo waalidiintina ay ilmaha markii gaan ay baxaan oo qaar ba taksiga qaarkood shaqooyinkooda ay sii aadaan ma suurta galayso marka waxa loo baahan waalidiinta inay diyaar u yihiin dhaqaale ku bixiyaan in ilmahooda quraanka loo baro taysid hadhow tarbiyo tayo leh loo helo iyagana juhdi زيادة أي جليان جورج مركي ماذا حسابته كان لولا حسابته مو كان جورج لوجا عاوية أي القرآن كان لوجا عاوية سيدا مركي عشان السكول كوكو أتكاتو كله هي هذا لكسير بها بحيو كبسير عنقو كله إنه سوريان أي القرآن كان كله راديان مركا وحن دريما إني هالكاس سي organize جريسان جروب هانا يعني هذا فرتورت كان عمل لكن سي جروب هانا أما كمونك أما دجمدا أما الدولة اللي هو بندق الله كأنه قومية بنا هاي لغة جاران لنا دين بنا هاي waxaan rabnaa maadaama ilmaheennay yani qayb waxbarashadiisa iyo koritaankiisa maskaxiina identigiisa ka mid ay tahay in loo sameeyo tilbuud ah inuu luqadiisana heli karo diintiisana baran karo su-aashaas adeerna waxaan ka siinayaa adeer laakiin adaan rabaa inaan ku weydiiyo ma la heli karaa yani organization yani urur baqasma laakiin hawl noocaas oo waa la qaban karaa laakiin taa mas'uuliyaddaas waxaa la masaajidda dawladda lacag fara badan ay ku siisaa kuwa Soomaalida iyo kuwa qowmiyadaha kale oo malaayiin baa lagu siiyaa iyaga loo baahay inay fikrad ay la yimaadaan inkastoo masaajidda caqabado fara badan iska hayaan oo qaarkood ay rabaan mustaqbalka inay dhismooyin waaweyn ay dhistaan maadaama muslimiinta ay sii fara badanayaan oo dhaqaalihii uu fara badan yahay laakiin meelo kale mustaqbalka loo dhigayo loo isticmaalo laakiin masaajidda laga baahay waalidiinta inay ku dhiirigeliyaan inay fahamsiiyaan inay door muhiim ah iyaga ka qaataan tarbiyada ilmahooda taa iyaga iskale laakiin anaga hay'ad ahaan waxaan sii karnaa talooyin oo kale midaan ilmaha waxbarashadooda ilmaha wadanka loo celinayo oo kale aniga kali waxaan ku darsan lahaa kuwa yaryar ah iyaga saameyn weyn ku yeelanaysaa laakiin 18 kuwa ka weyn badanaa wadankan oo kale ama faldambiyeed galay ama daroogo lagu qabtay ama kooxaha gaangistarada ku biiray kuwaas naftooda la badbaadina Norway ba xataa kaaga mahad celinayso haddii aad wada cunug la raadsanayo la leeyahay waa la dilayaa
haddii aad wado tirada abo bal soo baxo Soomaali xoogaa 6 bil buu ku soo qaada kuwa ku raadsanaya intay xabsi galayaan ama meel kale ay aadayaan bal soo hawo bedelo qofkaas noloshiisa badbaadis meesha u digtin dawladda kaaga daba imaarso waa qof qalgaari waqti asaga go'aan kale marka meesha si xasaasiga ee laga rabo in xoog la saaro waa ilmaha 18 kiyar iyo kuwa 10 sano ka siiyay kuwaas loo baahan waalidiinta talooyin fara badan in laga siiyo 18 mar hadduu gaaro waaba qofkan gaaro ka dabtag aan lahayn okay oo maasanta su'aashaas ilmahan waxbarashadiisa diiniga ama dhaqankiisa ma qasaba in wadan dheer uu aado meel halka uu joogo ku heli karin may qasab maaha qofku halku joogaa buu wuxuu doono ku heli karaa waliba dalalkan aynu joognay garanaysaa resource-ka faraha badan yaaliin waxa weeyaan ay sahlan tahay haddaad doonaysa inaad wax barato iyo haddaad doonaysa inaad wax noqoto ama aad garanaysaa meel waxbarashada ay free tahay wax walba ay garanaysaa sahlan yihiin waxuu ku heli karaa noloshii magaranaysaa kulleyba dee ilaa xad ay dabaran tahay qofku si magaranaysaa u noolaan karo magaranaysaa wanaagsan way hawl yartay laakiin waxa weeyaan xaqiiqa markaan ka hadalno marka u horeysa waalidka ayaa mas'uuliyadda koowaad saaranta ilmahooda cid kale ma saara waxba ay soodan cid kale waxan kale waxa weeyaan waa resources kale aad adeegsan kartaa masaajidku waa resource kale adeegsan kartaa for example meelaha kale laga helayo garanaysaa caawimada sida ugnomas minoriteed oo kale waa resource la adeegsan karaa laakiin labada waalid iyaga mas'uuliyadda ilmahooda marka hore leh waxaan dareensanahay waalidiin badan inkastoo xitaa labada waalid xitaa haddii aanay wada deganeen mas'uuliyadda ilmahoodu waa wada saaran yihiin inay iyagoo aan wada deganeen xitaa labada waalid ka wada shaqeeyaan mas'uuliyadda ilmahooda oo ay ka wada hadli karaan oo ay magaranaysaa wixii ugu wanaagsan ka wada tashan karaan oo ay waqtiga la gelinayo wada gelin karaan oo qof waliba wuxuu ku wacan yahay labada waalid ilmihiisa gelin karo ama magaranaysaa uu gelin karo ayaa loo baahan yahay taasi waa waalidka marka laga hadlayo mas'uuliyadda saaran iyo ilmahooda ta labaad waxa weeye ta mujtamaca levelka labaad ama marka masaajidta noqoto ama magaranaysaa urur kale oo caawimo magaranaysaa bixiyo ummad mujtamaca caawiya ha noqdo ama wax kasta ha noqdo taasi waxay u baahan tahay inagu waxay nahay ummad aan aqoon organization wax la yiraahdo dhaqan uma lihin organization waxa laga yaabaa xaafad baan deganahay magaaladu laga yaabaa 7 xaafadood bay leedahay mid baan deganahay Soomaalida degan waxa laga yaabaa inaanay ka yaraan dad door oo familiyaha iyo singlesiba wada degan way adagtay inay inta balanka joogtay isgaari kartaa ee aan u baahnayn inay basas isu raacda inta isu yimaadaan inay mustaqbalka ilmahooda iyo wixii local ay samaysan karaan area-da inay ka wada hadlaan baxtaa adag xaqiiq marka laga hadlo waana samaysan karaan waxaana ka jiray dalka Norway waxa la yiraahdaa PDL baa la yiraahdaa PDL waliba waxay leedahay magaranaysaa gudiyo ka jira meelo magaranaysaa caawimo laga dalban karo localis aad magaranaysaa dalban karto oo lagu siin karo yani facilitate fara badan baa ka jira meelahaas oo dhan laakiin inagu dhaqan ahaan intaynu isu nimaadno inaynu si localize organize gareyno ilmaheenii wixii aynu magaranaysaa halka kale heli karimka dhaqanka oo kale oo laga yaabo masaajidka inuu ku careeyaan ma oo diinta wuxuu looga sheegay intuu yar yahay laakiin dhaqan oo kale luqaddu waxay ka mid tahay waxaan dhageystay Sheekh Mustafa maalin maxaadar u jeedinayay luqadda Soomaalidu wuxuu yiri waa mid ka mid ah ama dhaqan kasta oo dal Islaami leeyahay luqad kasta oo dal Islaami leeyahay diintay ka mid tahay way imka hadaan isiraaho Norwaychi diinta Islaamka ugu sheeg Cabdiraxmaan waa uu adkaanaysa waxa laga yaabaa kelmado badan inaan ka waayo ama wax badan aan ka waayo magaranaysaa aan ka waayo laakiin anigu luqadda intaas oo saran muslim soo ahayn luqadeena ku jirtaa yani diinta islaamka ku jirtaa marka luqadda in ilmaha la baraa waxa weeyaan oo luqadda Soomaaliga uu si hodan ka noqdaa oo ku hadli karaa at least ku hadli karaa oo waalidku kula sheekaysan karaa oo problemska jira ay ku wada xalili karaan waxa weeyaan laf dhabar waa arrin laga maarmaan halkan laga sameyn karo waana wax halkan laga sameyn karo ha Ahmed oo maasan adro cumar ma sahay waxba maad waxaan ku rafanaynaa ka hadlaynay
problem stealing-ka ama su-aashii meesha taallay ku saabsan ilmahan la dhaqan celiyo dabcan saa sheegteen waalidka Soomaaliga wuxuu ka fikirayaa ilmahaaga maxaa u fiican laakiin mar walba waxaa diidee niyadda wanaagsan marmar baa waxaa ka imaado muxuu ahaay caqabado oo aan sidii loo filayay aan wanaagsaneyn bal talada haddaba imaano xilli samara la joogaa waalidiin badan baa laga yaabaa inay arrintan hadda aan ka hadleyno ay maskaxdooda ku jirto ama ay ka sheekaysanayaan gudaha haddii maanta waalid Soomaali ah oo arrinta hadda aan ka hadleynay ku fikiraya uu jiro talada aad siin lahayd ka qof cilmigan korinta ilmaha bartay ahaan iyo qof ka dhalinyaro oo waalid ahaan bal qofka waalidka position hadda aan ka hadleyna taagan talada aad siin lahayd Axmed maxay tahay saddex koob ayadoo kooban صح talada horta waxa weeye inaga ku nool ayadu inaguma noola sida la dhaho marka talada koobaad horta waxa weeyaan qofku waxa la rabaa inuu noqdo proactive inuu reactive noqdo ma aha waa inuu proactive waxa ka dhigan tahay waad ka horeysaa intaysan dhibaatadu dhicin waad u sii sahaminaysaa waad ka sii hortagaysaa waad ka sii baarandagaysaa waxaad sii samaysanaysaa plan baad u sii samaynaysaa kasoo qaad laba waalid hadda iskuursadaa tihiin ilmaad sugaysaan sanadka dambe ama aad rajaynaysaa mar dhow inuu dhasho waa inaad u sii xadxadhaan ood ka sii talisaan sidii ugu wanaagsaneyd aad u korin lahaydeen luqadii baa soo galaysa diintii baa soo galaysa meesha la joogaya soo galaysa waa marka talada koobaad waxa weeye proactive noqo tala yeelo lasla tashanayo labo ilmihii uu dhashay waa inaad ogaataa mar kasta ilmahaagu inuu fahmayo wax ka badan intaad u malaynayso inuu fahmayo hatta markuu saa u soo dhashabo luqad ma fahmayo laakiin wax kale uu fahmaya aragti uu fahmaya jacaylka uu fahmaya dareenka kale uu baahan yahay labada waalid waa inay ogaadaan mar kasta ilmahoodu inuu fahmayo in ka badan intay u malaynayaan inuu fahmayo so meeshan inaad reactive noqotid oo sugtid markuu ungdum iskuula soo galo yar hashkateeyo habeenku soo yar daahay okay allaha dhaqan celis alla reedo wada hasan tahaybo oo yaraan dhowr 10 sano hasan tahay way markaas so talada ka waxa waqti hore toos waqti hore istiyaari fikirkaagu markasta diyaar ha sii noqdo haddii aadan adigu ay kugu adag tahay oo ay ka yar wareersan tahay oo rabtid wax wanaagsan inaad samaysid laakiin aadan hubin talada badi la tasho dadka kugu wareegsan dadka professionalka waxaan ka shaqeeyo la tasho dadka localka masaajidada iyo community-ga ku jira waxaan garanay la tasho familada wanaagsan ee leedahay ku dayashay mudan yihiin la tasho talada badi intaadan talaabada qaadin talada koobaad waa taas wax kalma ku dare may waa kale muhiimadu kale waa taas okay abdi ku soco yani talada waalidka Soomaaliga position-ka hadda taagan oo arrintan qiimeynaya ka fikiraya maskaxdooda ku jirto talana caawisin lahayd horta xilliga samarka dawladda oo kale walwal badan ay qabtaa erboorada kale xitaa ama iskuulaadka security erboorada kulli fariimaha loo diraa qoraal ah ee wasaaradda cadaaladda ay dirtaan u maleynaya oo la leeyahay feejignaada dadka sidaha loo fiiriyo waalidiinta Soomaaliyeed horta waa dad ilmahooda wanaag la jecel mar walba xal u raadinaya iyagana xor u ah waan dad aqli badan talo un baa la siinaya anaga talooyinkaas siinayna waxay runtii ku dhisan tahay qadiido badan iyo kiisas badan aragnay tawheed spirit baan saar ma sheegi karno laakiin waalidiinta sidoo walaalka Axmed sheegay hadii cunuga markii la wadaay qorshe hore loo sii dago imiso sana la soo jooga meesha adeer wuxuu ka dhawaajiyay inaysan labada waalid ilmaha aysan ka soo tagin ehel looga soo tagin in waalidiinta mid kamid ah ama hooyada ay la joogto mise aabaha midka kale haduu nuuri ku soo laabto sidii u shaqeeyo marka qorshahaas oo dhan hadii la wada dejiyo waxa isleeyahay waxbarashadiisina laga fikir wax badan baa hagaagaya laakiin dhibaatada hore loo arkaa waxa kamid ah cunug baa la geeyay Nairobi uu soo joogay waa la soo celiyay halkan la keenaya 2 sano joogaya luqadii buu hadana la soo qabsanay casharada iskuulka hadana ingiriiska la geenaya waxa isleedahay ilmahan ilman baa waa dadka safaaradaha dibadda ka shaqeeya diblomaadiyada oo kale wareegaya oo mar walba luqadii la soo qabsanaya hadana waa la soo wareejinaya marka waalidiinta intaasna waxay raadinayaan falas oo cunugan diinta la baro والوالدينta idinkaaba diinta yaqaan Soomaali kulli diintan ku wada dhalanay idinka diinta bari kara macallimiinta iyo masaajidda iyo culimadana halal ka shado arinka runtii doodan kale inuu ma filla
dood weyn bay u baahanta Soomaaliya hadii Ilaahay laga cabsado waa arin mustaqbalkeena masiirkeena wadankana saameynaya waxaan rabnaa dadka muslimiinta wadankan ugu cilmi badan ugu activesan inaan noqono Afrikaanta wadanka ugu cilmi badan oo ugu galgal badan inaan noqono inaan dad hal door wadanka ka noqonaa rabnaa laakiin mustaqbalka heerkaas ma gaari karno hadii ilmaheena maalin walbaba wadan la geenayo ay dib uga sii dhacayaan waxbarashada taas in laga fikira loo baahan yahay adama aan ku bilowdan ku soo gabagabeynayna talada Cabdiraxmaan iyo Axmed ay ka dhawaajeen bal waadka Soomaaliya bulshada hadda taagan waxbaan baa soo joogtay soo aragtay ama aad maqashay ama aad gobjoog weeyd talada waa asiileed walka Soomaaliya arrintan qiimeynaya ama ka fikiraya ama ay ku dhacday oo tay arrintan hadda dhaqaaqayn sameeyeen hadda meel position kale taagan oo isla war wixii iga qaldanaysan u saxa waxa weeyaan arrintaas waalidiinta la xiriidha caruurtooda iyo sidii magaranaysa ay mustaqbalkooda u toosin lahaayeen waa arrin sida Cabdiraxmaan iyo Axmed ka dhawaajiyeen muhiim ah anigu waxaan u arkaa kolley waalidiintu inay caruurtu inay horta dhulkoodii ku xidhnaato oo marka laga hadlaayo fasaxida gaaban bay sanadlaha loo geynayo qofkii aan awoodaynin ama aanay suuragal u ahayn inuu ku hayo dhulkii oo ama dhaqankii markuu doonayo inuu soo baro ama halkan aan garanaysaa kaga qabtiraynin wixii islaha way u baahan yihiin ilmahaagu bal horta inuu kula dadaalo oo aanu lacagta yar intuu isbaareeyo aanu guri baan dhisanayaa aanu odhanne uu fasaxyada ilmaha ku geeyo dhulkiisii marka fasaxyadana dhulkiisii maad geyn haddaad Nairobi geyso dhulkiisii maad geyn haddaad geyso Ingiriiska dhulkiisii maad geyn haddaad Carabaha geyso iyo Dubai meesha afkoodii iyo biyadoodii iyo dhaqankoodii ay ku soo baranayaan waa dhulkoodii oo biyadooda af Soomaaligu de waxa weeye dhul buu leeyahay dad doonaysa inaad ilmihii dhaqankii Soomaaliga iyo afkii ay xoojiyaan bal at least waxa ugu yari waa inaad waqtiyadan fasaxyada labada bilood geyso soo celiso xiriir baa dhacaya oo dhulkii iyo dhaqankii iyo isaga iyo ilmaha ka dhacaya isla markaana kamu habsaamin oo kamu dhicin يعني waxbarashadiisii oo muddadii fasaxayd weeyaan koobnayd weeyaan waxa geenaysa laakiin saddex afar sano waliba markuu yar yahay ama aad ugu wado inta 10 gaadhayo waxa weeyaan ilmahaasi luqadiisuna way adkaanaysaa dhaqankiisina wax buu ka ogaanayaa isla markaana waxbarashadiisii iyo nidaamkiisii halka Norway wax dib u dhici ku iman maayo marka fasaxyada wixii wax kala hadaawooda weeyaan bal fasaxyada loo ogaado caruurta inay si joogta aad u geysaan waalidiinta waa taladan siinayo ta kale aan oran lahaa waxa weeyaan waalidiinta waxa loo baahan yahay inay is organize gareeyaan oo waxa weeyaan wax masaajidadu had iyo goor waxay ku kooban yihiin xagga diinta inay waxay ka buuxin karaan ka buuxiyaan laakiin ma lihin meelo dhaqan oo ama luqad ahaan laga garanaysa ilmi loo xoojin karo dhaqankiisii iyo afkiisii ma lihin in laga fekero oo bulshadii meel joogta Soomaaliyeed ba ay isku daydo waalidiintu oo waliba jeebka loo furo oo macallimiin professional oo garanaysa dhaqanka iyo luqadda wax ka taqaana ay adeegsadaan in la badiyo meelaha ay caruurta Soomaalida isugu keenayaan garanaysa ay isugu imanayaan oo lagu barbaariyo runtii waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay innaga dhexdeennina waa yar yahay bulsho ahaan xidhiidhka familiyadana ka dhaxeeya wuu yar yahay xidhiidhka aynu bulshada la leenahay kalena waa yar yahay oo waxaad moodaa in reer waliba isolation isku sameeyay oo isagu magaranaysa gurigiisa yar isku xidhay baad moodaa isolationka inaynu iska saaro oo bal horta inteenan magaranaysa isku dhaqanay aan dhaqan iyo afu kala durkayni aynu isolationka iska saaro ilmihii halkan uu koraya waxa laga yaabaa inuu dhaqankii Soomaalida isolate ka noqdo oo aanu magaranaysa xidhiidh badan oo mujtamac Soomaaliyeed xidhiidh badan la yeelan xidhiidh badan aanu magaranaysa ku xidhmin hadhowto bulshadii kale magaranaysa uu ka xidhmo oo waxyaalo cultural magaranaysa isolation xagaana kaga dhaco xagan oo isolation ka noqdo imika meelaha aan isugu nimaadno waliba dadkayga waaweyn aan isugu nimaadno ragga u badan caruurtii halkan ku kortay ku dhalatay xabadka gaarka xabadka gaarka waayo
luqad ahaan iyo dhaqan ahaan ayaanu ku batan wahay xaqiiq markaynu ka hadalno luqad ahaan iyo dhaqan ahaan ku batan maaha ma dhex iman karo kama dhex sheekayn karo wuxuu noqonayaa wax dee ma garanaysaa aliens oo dhex yimid dadkiibuu noqonaya markaa waa ka xishoonaya uu iskaga laabanaya batagayo milyoogaas soo geli maayo saasoo isolate ka ahanaya waa nasiib daro waxa wanaagsan sababta barrierka ugu weyn ama yani waxa weeyaan xanibaada ugu weynina waxa weeyaan dhaqankii iyo afkii wax kale maaha dhaqankii iyo afkii marka waxa weey noo yaala hawl culus bay noo taala ilmaheenu generationskii hore way baxayaan halkan markaynu joogno kuwii ku barbaaray meesha imanaya kuwiina waxa weeyaan waa kuwa imika garanaysaa qaar ka badan intooda badani wixii halkan ku koray weliba ama ku dhashay ama yaraan ku yimi waxa weeyaan mujtamaca Soomaaliyeed intaa yare iyagu sasha waa laga yaabaa qaar yani ama kubadooda ciyaara ama meela is urursada way jiraan oo weliba iyagana ay center u yihiin kuwii Soomaaliya weynaanta kaga yimi iyagana waxa center u ah intaa yare is urursatana qaar weynaan kaga yimi Soomaaliya oo center ah oo isu geynaya marka waxaynu u baahanahay inaynu toosno sidii uu sheegay Adeerdo Axmed aynu u toosno ubadkeena si dhiib la loogu fakaro ilaa ilmu markuu dhalanayo waalidiintu ka fakarto waalidiintu iskaashato way kaliya qofku waxa diidan wuxuu qaban karaa موضوعنا موضوع بلارن ودhinacyo badan leh nagu mara filna waqtiga dawada kale insha Allah soo imaan doona waxaan u mahadcelinayaa Umar Ali Abdi oo Soomaaliyeed oo injineer magaalada muddo dheer degnaa iyo Axmed Xasan Dhuux oo ah barnaamij pedagoog oo bartay cilmiga loo yaqaan korinta carruurta dan saxay ma aqaan af Soomaali hadda sax noqonay qiyaastii soo dhawaanaya iyo Cabdiraxmaan Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Militator oo ka dhisan magaalada Stavanger am xarunta dhalinyarada ee Militator magaalada Stavanger barnaamijkan oo ah kii koowaad barnaamijka taxana aan ka sameyn doono mowduucan ku saabsan dhaqan celinta carruurta oo maanta aan ku qabanay magaalada Stavanger intaas ayaan kusoo gabagabeynaya aniga waa Saciid Maxamed Muuse iyo martida ila joogto iyo Katalin oo kaamirada naga caawinaysa waxaan ka mahad celinaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.